xaafadan Yarva aan deganahay ayaan maartay gudoomiye ka ahay waxaan fadhiyaa baarlamaanka Stockholm xisbiga Vänster Party ayaan fadhiyaa aad iyo aad bay sharaf iigu tahay maanta caawa in halkan ku soo dhaweyno wasiirkeena Maxamed Cabdullaahi oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha iyo wafdiga hogaaminayo waa wax aad iyo aad loogu farxo in maanta nala soo booqdo la arko jaaliyada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee degan degmadan magaalada Stockholm iyo degmada qaaska aan ku nahay u badanahay Yarva isla markaasna wadanka Sweden in kasto ma aragtay muddo yar uu nala joogayo haddana waxay tani ay tusaale u tahay kala faa'iideysiga labada wadan Sweden iyo Soomaaliya in kasto rajayn lahaa inaan ma aragtay aan wasiirka geyno نمدها اللي راه فاتن ستوكهولم فال فاتن ستوكهولم ستوكهولم فاتن فال oo ah meesha Stockholm biyaheeda laga siiyo magaalada Nordland oo ah webigan Mälaren la yiraahdo in la kala qaato la kala war qaato iyo sidii loo kala faa'iideysan lahaa insha Allah waxaan rajaynayaa marka dambe uu wasiirka soo laabto in intaan ka badan uu nala joogo aan soo tusino degmadan Stockholm iyo maamulka degmada Stockholm iyo maamulka xaafadda Yarva inaan maartay aan geeyno insha Allah waxaan leeyahay gacmo fur ku soo dhawaaw waan ku sugaynaa mar labaad insha Allah iyo wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo wasiirkeeni oo dalka nala deganaa ciyalka xaafadda nala ahaa reer Stockholm aan iska dheelay Cabduqaadir Shiri Galbeed soo dhaw walaalkii adigana ma sha Allah hambalyo waxa sharaf noo ah hadana jaalid Soomaaliyeed dalkan Sweden inaan nala joogtid mudan wasiir waxa mudneed intaan ka badan iyo ka sii weyn in lagu qabto laakiin waxa naloo sheegay waqtigaaga aad cariir u yahay oo hal maalin kaliya aan nala joogaysid marka oo soo dhaweynayna Stockholm intaan way ka sii weyn tahay ururka isbahaysigana magaciisa aan ku hadlayo ummad Soomaaliyeed ama jaalidto dalkan ku soo dhaw Stockholm wasiirkeeni wasiir dowlaha macdanta iyo tamarta mudane Maxamed barnaamijkeeni soo noogu furan yahay iyo matqaana walaalkeen Cabduqaadir oo asigana marti nooga ah wadankan deganaan jireen macna asna waxa leenahay ku soo dhaw Cabduqaadir Shire dadka walaalaha oo ka soo qayb galay salaam dabadeed waxaan soo dhaweynaynaa caawa wasiir dowlaheena tamarta iyo biyaha qaranka Soomaaliyeed oo halkaan ugu soo booqday waxaan leenahay soo dhawow ku soo dhawow jaaliyada Soomaaliyeed ee Sweden walaalaha gacmo furan ay ku leeyihiin hawlaha wadanka u haysidna waan ku faraxsanahay dhamaan dawladda Soomaaliyeedna waxaan leenahay hawsha ku jirtiin xoreynta wadanka iyo maxaan ku iraahdaa argagixisada dagaalanka Allah idinku guuleeyo waa idin garab taaganahay waan sababna waa idin siinayna hadii aan nahay jaaliyada Sweden waxaan kaloo aan rabaa inaan meeshaan uga mahad celiyo walaalkay Umar Shukri oo asna si fiican hawshan uga qayb qaatay oo runtii aan iloobi karin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ugaasadeena Batuulo gudoomiyaha degmada Yarva Cabdirashiid wasiir dowlaha tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka Maxamed Cabdullaahi wasiirka tamarta iyo bay'adda galmudug saaxiibkay oo aan aad saaxiib u nahay Cabduqaadir Shire Galbeed oo leeyahay soo dhaw mar labaad mar saddexaad waxaan rabaa meeshaan anigoo codkiina ku hadlaaya inaan baaqo diro dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo aan leenahay mudane madaxweyne haddaan nahay jaaliyada halkan fadhida caawa ee Sweden waxaan ka taageersanahay maskaxda jeebka iyo qalbiga intaba waxaan kula taaganahay hiliho inaan kala qayb qaadano dagaalka xaq ah ee aad ku jirtid ee aad ummadda Soomaaliyeed aad rabto inaad ugu xoreyso khawaarijta soo dilatay ee ummadan dhiigooda xalaaleysatay waxaan ku leenahay madaxweyne cabsan waan kugu dhiirigelinaynaa waadna ku maasantahay tuutaha qaranka aad gashatay sida aad sharafta leh aad u hogaaminayso ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan inta ka qayb qaadanaysaba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa dhammaan dadkii meeshaan caawa ka soo qayb galay ee waqtigooda noo siiyay waxaan marnaba la ilaawi karin gogoshaan quruxda badan ee caawa aan fadhino tiimkii noo qurxiyay ee Somali Star milkiilaha daaniyada halkaas fadhiyo sacabka siiya
daahir waa dadka cusub oo ganacsatada lagu soo biiriyo wadankan oo maaragtay u heelan inuu u qidmeeyo ummadda Soomaaliyeed daahir waa kaaga mahad celinaa intaas ka bacdi waxaan u maleynayaa kulley waxaan leeyahay ka cudur daaranaa soo daahitaankii yaraa waan soo daahnay haddana waxaan leeyahay wax badan idinku sii dheerayn mayno xafladeennii waa noo soo gabagabowday haddana cashadii ayaan maaragtay noo bilaabanaysa waana maaragtay sharafta leh ee goobta isugu yimid aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo duqa xaafadda Yarba waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo gudoomiyaha rigiska mudane Xamdi mas'uuliyiintii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan bahda saxaafada iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay dhammaantiin marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan anigu ma ahi qof lagu soo dhaweynayo Stockholm laakiin waxaan ka mid ahay dadka wax ka soo dhaweynaya wasiirkeyga waxaan ku faraxsanahay in mas'uuliyaddaas ay saaxiibaday qaadeen oo soo dhaweeyay oo booskaygii la buuxiyey intaa kadib waxaan rabaa inaan walaalaan idiin sheegno aniga iyo wasiirka iyo waqtiga uu hogaaminayaba runtii socdaalkeennan waxa uu daaran yahay message aan ka wadno deegaankii iyo dhulkii dalkii waad ogtihiin marxalad dagaal ayuu ku jiraa umaanan imaan halkan soo dhaweyn iyo inaan ku xafladayno waxa aan wadnaa waxa ay tahay message waxaad ogtihiin madaxweynihii qaranka in muddo bil ka badan uu maamulka galmudug fadhiyo halkaas uu ka hogaaminayo dagaalka lagula jiro nimanka khawaarijta dalkii oo dhan uu galay marxalad dagaal walaal waxaan idin ku bogaadinaynaa insha Allah taala anoo jecel in wasiirku oo arrimahaas aad ugu dhundaloola ilaa iyo dhuusmareebna tagay hawshaasna wax badan ka soo qabtay isagana inoo faahfaahin doona in dhammaantiin aan idinka codsanayno naf iyo maal wixii aad awoodaan inaad u hurtaan xoreynta dalka oo nimankaas ummadda dhibka badan ku haya sidii looga saari lahaa runtii dadaal fiican baa la sameeyey dagaal baa la galay anigu bilowgii dagaalka waan joogay magaalada dhuusamareeb maamulka galmudug sida aad la socotaan dhammaan shaqooyinkii waa la joojiyey waxaana loo jihaystay dagaalka ayaa loo jihaystay goobtaas madaxweynihii qaranka ayaa fadhiya oo halkaas dagaalkii ka hogaaminaya warbixinta hordhici maayo insha allahu tacaala wasiirka oo xogogaala ayaan intaa u dhaafaya waxaad la socotaan in waayadan dambe ama guud ahaanba uu jiray cadow ragaadiyey ummadda Soomaaliyeed isla markaasna aan kala saarayn waxa uu reebtana aysan jirin lana dagaalamay dowladnimadeenii qarannimadii deganaashihii iyo noloshii iyo nabadii intaba kaas oo indhawaalaba sidii ay u timi dowladdan cusub oo madaxweynaha ka yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda oo odaga ka yahay ra'iisul wasaare Xamsaba dagaal lagula jiray ka firfircoon dagaalkii hore loogula jiray dabcan waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan dagaalka ma markaas uu bilowdo maya laakiin waa la jadiidiyey waana ka naxuraysan yahay intii hore marka waxaad dareemi kartaan dagaalkaas in madaxweynaha qaranka sida uu wasiirku sheegaba oo maamul goboleedyada dowladda federaalka xubnaha ka gaar ahaan maamul goboleedka galmudug oo muddo ku dhow hal bil u jiifo ama u joogo ama ka shaqaynayo sidii loo soo afjari lahaa ama la isu soo dhaafin lahaa nimankaas nabadda diiday ee ummadda Soomaaliyeed qarannimadeedii ragaadiyay mudanayaal iyo marwooyin taasi waa mid ka mid ah tiirarka ay xukuumadda dan qaran qaadatay tiirka ugu olmiyeysan ama ugu horeeya oo ah in laga ciribtiro laga baabi'iyo ummadda Soomaaliyeed nimankaas nabadda diiday si loo helo deganaasho kala dambeyn dowladnimo isla markaasna adunkuba aad dalkiina dib ugu laabataan aadna u maalgashataan insha Allah taala diinayna mudanayaal iyo marwooyin dagaalkaasi wuxuu wajigiisii koowaad oo marayaa meel fiican kulay dabcan warbixintu idinma seegara waxaad dareemi kartaan caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo bishii ay ka dhici jireen qaraxyo fara badan lala eegto hoteelo lala eegto xarumaha dawladda lala eegto goobaha shacabku ku badan yihiin iyo shaariiciyada in alxamdulillah rabbil caalamiin dadaal iyo juhdi dheeraad oo la galay kadib ay sidii hore ka xasiloon tahay
isla markaasna ay hadda waxa dhaca ay kooban yihiin inta badanna ay yihiin wax lagu daba jiro ama lala socdo waxyaabaha dhaca halka markii hore ay dhici jireen qaraxyo ama shilal fara badan oo aan maaragtay isla markaasna meel ay ku dambeeyeen iyo markii laga reebo in nabadiidku geystay in la og yahay aysan jirin sida si gaar ah loogu soo qabtay aysan jirin hadda alxamdulilah rabbil caalamiin waxaad dareemi kartaan in dhacdooyinkaasu ay yaraadeen ay yar yihiin isla markaasna markii ay dhacaan ciddii geysatay haddaysan ahayn kuwii ayagu isqarxiyey wixiiba ka haro la soo qabto isla markaasna ciddii abaabushay xogteeda la helo mudanayaal taasi waxay horseeda alxamdulilah rabbil caalamiin in magaalada muqdisho ay xoogaa xasilooniyu ka jirto dabcan wax waa dhacaan inkiri mayno laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meeshay hadda marayna inay kasii hagaagto haddii ilaa yidhaahdo sidoo kale waxaad dareemi kartaan gulubkaas aan ka dhawaajinay madaxweynaha jamhuuriyaddu oo halkaa u fadhiyo muddada ku dhow halka bil horena oo uga shaqaynayo caasimadda uga hagayay in xoogaa horumaraa laga gaaray deegaano iyo degmooyin fara badanna laga qabsaday dabcan deegaano markaan leeyahay 2 degmo ayay kaga socdeen nimankaasu galmudug gaar ahaan oo hadda operation wajigiisa koowaad oo ku wajahan yahay labadaa deegaan mid ka mid ah in laga saaray midka kalena haddeer yacni looga dhow yahay intii hore ama shaqadiisa iyo la tacaalidiisa gacanta lagu hayo deegaano fara badanna la qabtay ama la xasiliyey